madaxweynaha waddanka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu ururka Taliban ugu baaqay inay dib u bilaabaan wadahadallada siyaasadda ee lagu gaarsinayay mustaqbalka dalkaasi. Arrintaas ayaa waxay imanaysaa xilli ururka Taliban uu sheegay in militarigiisa uu ruqansaday sidii uu dhul hor la u qabsan lahaa. waxaana arrintaasi ku dareen in ay qabsadeen laba degmo oo ka tirsan gobolka Barwan oo halka uu ku yaal saldhigga militariga ee lagu magacaabo Bagram ee ku yaal waqooyiga magaalada Kabul kaas oo ciidamada Mareykanka ay toddobaadkii hore isaga baxeen. Haddaba magaalada galbeedka ku taala ee Herat ayaa mujaahidkii hore hogaamiyihii mujaahidiinta hore Ismaaciil Khan waxa uu taageerayaashiisa oo boqolaal oo isu soo baxay u sheegay in ay hubka qaataan oo ay iska difaacaan Taliban kadib markay qabsadeen meel u dhow halkaasi oo ku taal xuduudka dalkaasi uu la wadaago waddanka Iran. Cabdulqaadir Yuusuf Cali ayaa faafahinta warkan inoo hay. degmooyin badan jidadka waaweyn iyo xuduudaha muhiimka ah ayaa marba marka ka sii dambaysa soo galaya gacanta Taliban. Saraakiisha Taliban ayaa sheegaya in dagaalamayaashooda ay la wareegeen 85% dhulka Afghanistan, balse ma jirto cid ka madax bannaan oo sheegashadaasi xaqiijin karta. 24 saacadood ee la soo dhaafay, Taliban waxay qabsadeen ugu yaraan 4 degmo oo cusub iyo marino muhiim ah oo ay ku jiraan marinka Islaam Qala oo aad muhiim uga ah Iran. Taliban ayaa sidoo kale la wareegtay magaalada Turqundi oo ku taala xadka Turkmenistan. Macruuf Waxizi waxa uu degan yahay Herat, waxa uu walaac ka muujinayaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay isagoo wax laga xumaado ku tilmaamay in dawladda aysan ka fakarin badqabkooda. نگرانی ما همین است که طالبان مجار گرفته و walaac iyagu ayaa ah in Talibanku ay qabsanayaan dhulkii oo dhan, beesha caalamkuna ay meel cilaah nooga tagtay. xaaladda shaqo la'aantu waa mid aad u xun. dadka ka imaanaya degmooyinka ma imaan karaan caasimadda gobolka. dadku waxa ay wajahayaan dhibaatooyin dhaqaale oo aad u badan. guryahoogii waa la burburiyey, shaqana ma haystaan, qaarna waxayba bilaabeen in ay magaalooyinkani ka haajiraan. dad badan ayaa waxay haatan doonayaan inay dalka isaga baxaan. dadku dhibaato ayay haatan ku sugan yihiin. wakiilka gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta Afghanistan Zalmay Khalizad ayaa BBC u sheegay in ay la yaab noqotay dhulkay Taliban sheegayaan inay ku guuleysteen gacan ku hayntiisa tan iyo markii Mareykanka bilaabeen inay saaraan ciidamadooda. hase yeeshee waxa uu sheegay inuu wali rajo weyn ka qabo in heshiis nabadeed la gaaro. Sometimes as you move on the political process in such wars, mararka qaar iyadoo ay socdaan arrimaha siyaasadeed ayaa dhanka colaadda marka la fiiriyo dagaaladu waa ay sii xoogaystaan iyadoo dadka arrintaasi ku lug leh uu mid kasta isku dayayo inuu helo qiyam ama darajo sare marka ay socdaan wadaxaajoodyadu. haatan lama yaabani in colaaddu ay sii xoogaysato, balse haatan waxaan la yaabanahay guulaha degdega ah ee Talibanku ay soo hooynayaan. waxaan rajaynayaa in ciidamada Afghanistan oo taageero ka helaya saaxiibadooda ay iska difaaci doonaan oo ay dib u riixi doonaan Talibanku. balse dhanka kale waxaan mar kale ku celinayaa in arrintu aysan ahayn xal military. waa in la helaa xal siyaasadeed. ka ayaana ah waxa loo baahan yahay. There is no military solution. A political solution is what's required. jimcihii hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa walaac ka muujisay saamaynta sii kordhaysa ee weerarada Afghanistan kuwaasi oo hakad gelinaya marinada dawooyinka. waddanka ayaa sidoo kale wuxuu ku jiraa mawjadii saddexaad ee fayraska corona. Rick Brennan oo ah agaasimaha xaaladaha degdega ee WHO ee u qaabilsan bariga Mediterranean-ka ayaa sheegay in dagaalku uu caqabad ku yahay nidaamka caafimaad oo markii horeba liitay. hase yeeshee waxa uu sheegay inuu rajaynayo in Taliban ay ka dhabayn doonto ballanqaadkoodii ahaa inay caawin doonaan hay'adaha gargaarka. The worsening security situation has been associated with a sharp increase in civilian trauma cases. xaaladda amni darrada ee sii xumaanaysa ayaa sidoo kale waxaa lala xiriirinayaa jahawareerka sii kordhaya ee ku dhacaya dadka rayidka ah. durbaba 3 bilood ee ugu horreysay sanadkan 2021 waxaa jiray in 9% ay kordheen waxyeelada soo gaaraya dadka rayidka ah marka loo eego isla xilligaasi oo kale sanadkii la soo dhaafay. Talibanku waxa ay si dadban u dalbanayaan taageero si adeegyada caafimaad ee ka jira deegaanada ay qabsadeen ay u sii socdaan. sida awgeed waxaan rajaynayaa in mar un xasilooni ay dhici doonto oo aan hawshayada halkaasi ka sii wadi doonno oo aan sii wadi doonno inaan dadka gaarsiino adeegyada caafimaad ee muhiimka ah.
inkastoo ay taalibaan gaareen guulo muhiim ah haddana ciidamada amniga ee afghanistaan oo ay ku jiraan ciidamo tababar sare haysta ayaa dib u dagaalamaya tijaabada dhabta ah ayaana imaan doonta marka magaalooyinka la bartilmaameedsado hase yeeshee hogaamiyaasha taalibaan waxay sheegeen inaysan weerari doonin caasimadaha gobollada cabdulqaadir yuusuf cali aad ayuu mahadsan yahay warbixintaas ayuu inala socodsiinaya